ku soo dhawaada sheekadan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. qaybtan iyo qaybaha kale ee soo socda waxa aan ku dhageysan doonaa tebin ama sheeko aad iyo aad xiiso u leh oo uu ka sheekayn doono qof aysan caadi ahayn inuu ka hadlo sheekadan, iyada oo martida kale ee aan la kulanno ay ka warwareegaan ka hadlidda sooyaalkooda siyaasadeed ama diblomaasiyadeed iyo xitaa waaya aragnimadooda dhinaca ciidanka ee ku saabsan la tacaalidda dhacdooyinka, weliba iyada oo dadku maqlayaan ama arkayaan. qofka martida nooca waxa uu xirfadiisa ku dhammaystay caalamka sirdoonka, basaaska iyo jaajuusnimada, iyo weliba meel ka fog indhaha dadka. shaqadiisaas basaasnimada ah ayaa u horseeday inuu takhasus ku sameeyo galka ama faylka CIA ee Ciraaq, si gooni ah galka madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein. kadib sanado uu isha ku hayay, falanqaynayay, isla markaana ku daba jiray, waxa uu martigeennu nala wadaagayaa dadaaladii suuro geliyey qabashada Saddam sanadkii 2003. kadibna si shakhsi ah ayuu madaxweyne Saddam ugu sameeyey baaritaan iyo su'aalo weydiin qaadatay muddo bil ah oo ka dhacday caasimadda Ciraaq ee Baghdad, si uu u helo xog kale oo qarsoon oo aan qofna uga horrayn helideeda. tijaabadaas uu sameeyey waxa uu ka sameeyey buug ay ka buuxaan waxyaabo la yaab leh iyo siro aan caadi ahayn. buuggaas waxa uu u bixiyey golajoojintii madaxweynaha. qofka martida noo ah waa basaas iyo dembi baare hore oo ka tirsanaa wakaaladda dhexe ee sirdoonka CIA. waa John Nixon. mudane Nixon, ku soo dhowow. waa ku mahadsan tahay martigelintayda. sidee iyo goormee ayuu u bilowday xiriirka aad la lahayd madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein؟ حسناً، قابلت صدام لأول مرة في ليلة 13 من ديسمبر حين ألقي القبض عليه من القوات. markii igu horeysay Saddam Hussein waxa aan la kulmay habeenkii 13 December 2003 markii ciidanka gaarka ah ee Mareykanku gacanta ku dhigay. waxa aanan xilli hore intii aan ku jiray daraasaadka sare soo daraaseeyay soona ableeyay shakhsiyadiisa. kadibna waxa aan la joogay qiyaastii 4 toddobaad aniga oo ku sameeyey golajoojin, isla markaana su'aalo ka weydiiyey naftiisa, nidaamka xukunkiisa iyo habka uu u howlgalo. waxa aan dareemay in aan soo gaaray heer aan si wanaagsan u aqaan Saddam. waxa kale oo aan dareemay in aan wax badan ka bartay qof aanan horay u aqoon. متى التحقت بالCIA؟ والسؤال هو هل بدأت مباشرة؟ goorma ayaad ku biirtay CIA؟ su-aashu waxa ay tahay ma si toos ah ayaad CIA uga dhex bilowday takhasuskaaga ku saabsan faylka Ciraaq؟ نعم، بدأت العمل مع CIA في عام 1988. ها shaqada CIA waxaan bilaabay sanadkii 1988. shaqadeedii koowaadna waxa ay ahayd inaan noqday falanqeeye qaabilsan arrimaha Ciraaq. waxa aan dareemay inaan ahay nin aad u nasiib badan marka la fiiriyo shaqadan, maxaa yeelay Ciraaq waxa ay ku jirtay liiska muhiimka ah ee hortobinta leh ee madaxweynaha Mareykanka. waxa aan gartay in arrinkani muhiim yahay oo aan qaban doono howlo badan oo akhrin, falanqayn iyo qoraal ah. sidaas oo kale waxa aan dareemay in arrintani ay aad muhiim ugu tahay dadka jaangooya siyaasadda. هل الاختيار كان اختيارك التخصص في العراق أم القيادات في CIA هم الذين اختاروا؟ doorashada aad dooratay takhasuska galka Ciraaq ma adiga ayaa lahaa mise hoggaanka CIA-da ayaa kuu dooray dhinacaas? maxayse ka dhigneed doorashada takhasuskaasi؟ بوسعي القول إنه كان waxa aan dhihi karaa aniga ayaa doortay. ha yeeshee marka ay i doorteen waxa ay ogaadeen inaan leeyahay sooyaal aqooneed oo ku saabsan arrimaha bariga dhexe oo aan sameeyey intii aan ku jiray jaamacadda, oo weliba aan rabitaan iyo xiise badan u hayo ablaynta sooyaalka shakhsiyaadka, isla markaana aan leeyahay waxoogaa tababar ah oo ku saabsan cilmiga nafta ama psychology-ga, kaas oo aan qaatay xilligii jaamacadda. sidaas awgeed waxa ay go'aamiyeen in la igeeyo kaalin hoggaamineed oo dhinaca ablaynta ah. dabcan magacaabistaasi waa mid weyn, ha yeeshee waxa uu ahaa arrin aad u adag, maxaa yeelay dadka qabanaya xilka ablaynta siyaasadda ee CIA waa xubnaha dahabka ah, iyada oo dadka ila midka ah ay kaalin sare ku lahaayeen marka aniga la garab dhigo. sidaas awgeed xilkaasi waxa uu iga baahday inaan u shaqeeyo si dhab iyo biyikama dhibcaan ah, si aan madaxdayda sida tooska ah ugu shaqada leh hawsha ugu xaqiijiyo inaan leeyahay xirfad aan ka dhicin xirfadlayaasha kale ee sare. تقول أنك
كنت مختصا أو مهتما بالشخصيات التاريخية. waxa aad sheegtay in aad si gaar ah ama aad muhiimad gaar ah siinaysay taariikhda shakhsiyaadka iyo sooyaalka hoggaanada. wax ma ka akhrisay sooyaalka saadaam xuseen? waxa aan ula jeedaa ka hor intii aadan bilaabin shaqada iyo takhasuska CIA oo aadan si gaar ah ugu takhasusin galka saadaam. نعم عند التحاقي بالCIA haa markii aan ku biiray CIA ayaan dib u akhriyey galka saadaam si dhammaystiran. waxa uuna ahaa gal xaashiyo uun ah oo ay ku jiraan tiro badan oo maqaallo iyo warbixinno ah, kuwaas oo badankooda la qoray xilli hore oo fog. waxaan akhriyey dhammaan wixii ay suurtagalka ahayd inaan arko, sida sooyaalada laga qoray saadaam sannadihii tegey ka hor sannadkii 1999kiina maba jirin buugaag badan oo laga qoray saadaam oo tiil, balse wixii ka dambeeyey arrinku waa isbedelay. ha yeeshee lama hayn wax qoraal ah oo lagu kalsoonaan karo ama la dhihi karo waa buug waxtar leh ama waa cilmi baaris wax ku ool ah, maxaa yeelay wax aad u yar ayaan ka niqiin saadaam. هل مصادرك في الاطلاع على شخصية صدام وسيرته كانت معظمها مصادر غربية؟ markii aad akhrinaysay galka saadaam iyo sooyaalkiisaba ilaah aad adeegsatay si aad xog u hesho badankoodu ma waxa ay ahaayeen ilo reer galbeed iyo Mareykan laga yaabee, mise waxaa ku jiray ilo carbeed oo la turjumay? كانت لدينا معلومات استخبارية waxaan haysanay macluumaad sirdoon oo caadi ah kuwaas oo kala gedisan kalena duwan marka la eego ilaha iyo meelaha laga soo dhigtay. waxa aanan iska ilaalin doonaa in aan galo faahfaahinteeda maxaa yeelay waa iga reeban tahay dabcan, balse arrinta fariidka ah marka la eego cilmi baaristeennii Ciraaq waxay ahayd in aan safaarad ku lahayn Baghdad, waxayna ahayd ilxogeed muhiim noo ah. warbixinnadii ka yimid safaaraddaas waxay ahaayeen kuwa aad u badan, waxa ayna ka dhignayd ilxogeed hodan ah oo macluumaad aad u fiican ka bixisay habka xukunka saadaam, sida uu u shaqeeyo, dhibaatooyinka haysta, meelaha uu ku fiican yahay kuna xooggan yahay, meelaha uu ku xun yahay ee gaabiska ka yahay. nasiib darro wixii ka dambeeyey sannadkii 1999kii safaarad kuma aanan lahayn halkaas. mid kalena waxay ahayd intii lagu jiray sagaashameeyadii ayay gureen ama go'een macluumaadyadeenii. waxa aanan miciin bidnay adeegyo kale, xidhiirro iyo warbaahinta gobolka iyo tan reer galbeedka. intaas waxaa dheeraa arrimo kale, sidaasna waxa aan ku helnay warbixin mararka qaarkood aad waxtar u leh, halka qaarkoodna haba yaraatee aanay waxba gelin. mid ka mid ah dhibaatadii naga hor timid waxa ay ahayd isku daygii aan ku kala soocaynay warbixinnada sugan iyo kuwa aan sugnaanta lahayn. طيب قلت لي أنك كنت تعمل في وحدة العراق داخل hagaag waxa aad ii sheegtay in aad ka shaqaynaysay waaxda Ciraaq ee CIA. marka aan eegno waaxdan maxay uga dhigneed hoggaanka CIA? su-aasha kale waxa ay tahay shaqadiinna warbixinnada aad soo saarayseen ama aad kala shaandhaynayseen ma gaaraysay hoggaanka sare ee dowladda, mise oo keli ah waxa ay ku koobnayd caalamka sirdoonka? waxa aan u jeedaa warbixinnada aad adigu diyaariso ee ku saabsan Ciraaq iyo saadaam ma gaaraysay aqalka cad si uu madaxweynuhu u akhriyo? نعم العمل في العراق haa dabcan shaqada laga hayay Ciraaq laga soo bilaabo sannadkii 1988 iyo ka shaqaynta arrimaha gudaha ee Ciraaq marka la joogo CIA waa hawl aad muhiim u ah oo ay ku tartamaan shaqaalaha cusub inay ka shaqeeyaan. soo hadal qaadidda shaqooyinkaasina waxa ay ka dhigan tahay in hawsha aad qabanayso iyo waxa aad qoraysaba ay gaari doonaan madaxweynaha dowladda Mareykanka, waxaana la daalacan doona ama la akhrin doona dadka kale ee jaangooya siyaasadda ee ku jira golaha nabadgelyada qaranka. waa ka doodayaan, waxaana ka jiray aqalka cad baahi iyo hamuun gorgor badan oo loo qabay xogta iyo macluumaadka ku saabsan arrimaha Ciraaq. هل تتوقع الآن أنه ما كنتم تحصلون عليه من معلومات وتكتبونه من تقارير hadda ma kula tahay in wixii aad helayseen ee xog ah, warbixinnadii aad soo saarayseen iyo kuwii aad falanqaynayseen in ay u dhowaayeen waaqica Ciraaq ee siyaasadeed iyo kan bulsho? هذا سؤال ممتاز. waa su'aal aad u wanaagsan. mid ka mid a caqabadihii qabsatay markii aan isu diyaariyey inaan dib u akhriyo gaabiska waxa ay ahayd in aqalka cad naga doonayey in aan si gooni ah qoraal uga samayno arrimo dhowr ah. waxa ayna ahayd arrin wakaaladda CIA-du nooga baahnayd inaan siino ahmiyad gaar ah. arrimahaas middood waxa ay ahayd arrinta hubka wax burburiya, mid kalena waxa ay ahayd inaan derisno in nidaamka Ciraaq sii jiri karo, mid saddexaadna waxa ay ahayd inaan baarno ama ogaanno in saadaam
weerari doono kurdiyiinta ama shiicada gobolka koonfureed ama deegaanka ka caagan ee duulimaadka diyaaradaha wixii kale ee soo raaca waxay ahaayeen howla duceedyo waxaan xasuustaa in aan mar isku dayey inaan ku baraarujiyo maamulahayga sanadkii 1999kii ama 2000 waa u tegey waxaan ku idhi waxaa waajib ah inaan daraasayno gacan ku haynta magaalada Najaf iyo Ayatullah Sistani maxaa yeelay Saddam aakhirka waa dhiman doonaa cid kasta oo bedesha Saddamna shiicada degan koonfurtu waa qayb muhiim ah oo ka tirsan Ciraaq Sistanina waxa uu ku yeelan doonaa kaalin marka waxaan u baahannahay inaan fahamno awoodaha siyaasadda Ciraaq sida inaan leeyahay waxa aan daraasaynaynaa deegaanka meeraha Maris ayuu ii eegay ama ii fiiriyey marka guud ahaan maba jirin muhiimad gaar ahaaneed oo la siinayo waaqica taasna waxa sabab u ahaa waxa xoogga la saaraya arrimaha kale ee aan ku sheegay marka aan maalmahaas dib u soo celiyo ama aan u xasuusto waxaan isku haaraamaa alla fursadaasi maxay ahayd mid dayacan 3 sano kadib Saddam waxa la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay xukuumaddiisiina siima jirin kadibna Ayatullah Sistani ayaa kaalin iyo muhiimad weyn ku yeeshay mustaqbalka Ciraaq hagaag wax yar ka hor waxa aan ka wada hadalnay arrinta xogaha iyo ilaha aad ka helayseen macluumaadkiina Ciraaq waan fahamsanahay in aad ka ruqsaysatay CIA 3 sano ka hor isla markaasna aad si dhab ah u ballan qaaday in aadan kashifin dhammaan siraha aad ogtahay ee hay'adda arrintaasna waa la fahmayaa waana la filayay xitaa daawadayaasheennu waa fahmi doonaan balse inta aad awooddo in aad noo sheegto ama na siiso macluumaadka la ogol yahay in la kashifo isha muhiimka u ahayd macluumaadkiina ku saabsan Ciraaq ma waxay ahayd dad Ciraaqiyiin ah oo joogay gudaha Ciraaq oo ay suuragal tahay in aan ugu yeeri karno basaas u shaqeeya CIA iyo danaha Mareykanka أنا على ثقة أنه كان هناك بعضهم داخل العراق waa hubaa in qaarkood joogay Ciraaq balse warbixinada aan ku tiirsanayn waxa ay ka imaanayeen adeegyada xiriirka xogaha oo aan ku lahayn dawladaha la dariska Ciraaq oo ay xiriir iyo saaxiibtinimo naga dhaxaysay iyaga ayaa noo soo gudbinaya xogta intaas waxa dheeraa shakhsiyaad mucaarad ah oo aan ku nooleyn Ciraaq balse noo sheegay inay xiriir fiican la leeyihiin gudaha Ciraaq kuwaas ayaa noo imaan jiray oo aan la falanqayn jirnay mar kale waxa aan leeyahay ilaha aan xogta ka helno waxa ay ahaayeen ilo ama xog isku dhaf ah oo aan la kala tilmaami karin kuma faraxsani ka sheekaynta arrintaas intaas in ka badan maxaa yeelay waxa aan saxiixay heshiiska qarsoonaanta siraha أتحدث معك عن ما هو يعني متداول ومعروف ولكن hagaag xogta aan kaala hadlayo waa midda la hadalhayo qayb ahaan ha yeeshee dhab ahaan waxa aad haysaa macluumaad iyo abla-ablayn xogeed oo ka badan kana ballaaran inta la hadalhayo marka la fiiriyo golaha qaranka Ciraaq oo uu madax ka ahaa Axmed Jalabi oo dabcan si fiican loo garanayo waxa uu gacan siinayay CIA iyo guud ahaan Mareykanka arrintaas in badan ayaa la falanqeeyay waxaana lagu sheegaa in uu ahaa ninkii ku dhiirigeliyay Mareykanka in dagaal lagu qaado Ciraaq ama waxa uu ka mid ahaa dadkii u ololeeyay dagaalkaas goor dambe waxaa la dabool qaaday in macluumaadkii uu u gudbiyay Mareykanka ay ahaayeen kuwo aan waxba ka jirin bilow ilaa dhammaad golaha qaranka Ciraaqna waa golihii ku dhiirigeliyay Mareykanka qaadista dagaalkii Ciraaq waana ognahay khasaarihii Mareykanka ka soo gaaray dagaalkaas waxaase ka darnaa khasaarihii gaaray Ciraaq doorashadii aad doorateen shakhsiyaad sida Axmed Jalabi oo kale ah iyo dadkii ku hareereysnaa ee ku jiray golaha qaranka Ciraaq ma waxa uu ahaa go'aan sax ah asal ahaanse maxaa idinku qaaday in aad kaashataan shakhsiyaad runsheegidooda madmadow ku jiro dhab ahaantoodana shaki ka taagan yahay أحمد جلبي يقدم أخبارا كاذبة ومن أسوأ الأنواع waa su'aal kale oo aad wanaagsan marar badan waxa aan wax iska weydiiyay xilligii aan ka shaqaynayay Ciraaq markii aan tagay Ciraaq CIA waa ka maarantay Axmed Jalabi kumana aysan kalsoonayn kamana aysan helin ama ma aysan jeclayn sidaas oo kalena waxba kama dhageysanayn wax walba oo uu rabo inuu sheego Axmed Jalabi waxa uu soo gudbin jiray warar been ah waliba heerka iyo nuucyada ugu xun balse waxa aan dhihi karaa haddii uu jiro shakhsi keli ah oo mas'uul ka ah dadaalkii weynaa ee looga taqalusay Saddam waa qofka keli ah oo ku guulaystay ee guntiga u xirtay arrinkaas waxa uu ku kacay wax aanay suuragal ahayn in qof keligii ah uu qabto
ha yeeshee waxaa waajib ah inaan xusno inuu bartay in waddada guushu aysan ahayn midda CIA balse ay tahay waddada ama midda Washington si guud. taasina waxa ay muuqatay markii uu dhisay xiriir dhex mara isaga iyo dadka dejiya siyaasadda iyo xeerarka Mareykanka. ma ilaa heerkaas ayuu xiriirkiisa ballaarnaa isla markaasna xoogganaa. allah haa weliba si adag. mararka qaarkood waxa uuba ahaa ilmo yar oo rabaayad u ah muxaafidiinta cusub ee joogay dhismaha Pentagonka. waxa ayba sawirteen haddii uu ahaan lahaa Chester Trendlott, hogaamiyihii aqlabiyadda Koongareeska Mareykanka, kaas oo marna weydiistay faahfaahin kadib markii aan sooyaal kooban oo aad u taban aan ka qornay Axmed Jalabi. sooyaalkaas waxaan uga hadalnay waxyaabihii dhacay ee ku lamaansanaa taxanaha iyo taariikhda shakhsiyadda Axmed Jalabi. qoraalkaasi waxa uu calaamad su'aal saaray sidii Axmed Jalabi u maamulay bangiga dhexe. ma arrimihii ku saabsanaa ku lug lahaanshihiisa musuqmaasuqa. haa dhab ahaan haddii aan nahay wakaaladda sirdoonka ee CIA waxaa waajib nagu ahayd inaan u xaqiijino Senator Lott meesha aan ka helnay xogtaas, sidaas oo kalena aan sugno oo aan xaqiijinno dhammaan wixii aan sheegnay. arrintaasina waxa ay si gaar ah u qusaysay Axmed Jalabi iyo ururkiisa. waxa ay ahaayeen musuqmaasuq miiran ilaa heer aad u sarreeya. arrintaasina waa mid aan la falanqayn karin. طيب هذا معلوم يعني وكنا سمعنا عن قصص فساد بملايين الدولارات يعني سمعنا حينها وأكد لي هذا الكلام أو نفيه tan waa la og yahay waana maqalnay sheekooyinka ku saabsan musuqa malaayiin dollar xitaa waqtigeedii ayaan ogaanay balse ma xaqiijin kartaa ilxogeed ka mid ah ilaha macluumaadka CIA ayaa sheegay in madaxdii lahayd go'aanada waaweyn iyo jihaynta siyaasadda Mareykanku ay faraqa ugu shubeen Axmed Jalabi iyo ururkiisa malaayiin dollar oo ka dhigan miisaaniyad si howlo waaweyn looga fuliyo gudaha Ciraaq. howlahaasna waxaa looga dan lahaa in ay horseedaan aakhirka ridista xukunka Saddam Hussein. arrinkaas waxba kama hirgelin. halkaasna waxaa ku lumay miisaaniyad dhan malaayiin dollar oo la siiyey golaha qaranka Ciraaq. arrintaas maxaad ka ogeyd؟ في البداية كان هذا صحيحا وكانت مخابرات bilowgii hore arrinkaasi sax ayuu ahaa. hay-adda sirdoonka ee CIA xiriir ayay la lahayd Jalabi horraanta 90-yadii, balse waxa aan rumaysanahay in dabayaaqadii 95tii ama 96dii xiriirkaasi uu gaaray dhammaadkiisii. kadibna hantida waxa uu ka helay mashruucii xoraynta Ciraaq ee 98dii. waxa ay ahayd hanti ay bixisay xukuumadda Mareykanku, kamana imaan hantidaasi CIA-da. waan fahmay. kama hadlayo CIA iyo xiriirkii kala dhexeeyey Axmed Jalabi. waxa aan ka hadlayaa hantidii faraha badnayd ee ka timid Washington dhinacii ay rabto ha ka soo baxdo isla markaasna gashay gacanta golaha qaranka Ciraaq iyo Axmed Jalabi ee aan waxba tarin. arrintaas xog iyo xaraf aan kula wadaagi karo kama hayo, mana rabo inaan qof ku eedeeyo. waa ogahay in xukuumaddeennu maalgelisay mucaaradka Ciraaq sida Axmed Jalabi iyo golaha qaranka Ciraaq. waxa ay heleen maalgelin weyn. waxa aan garanayaa inuu joogay wakiil gaar ah oo wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan kormeerka kooxaha mucaaradka ah qaarkood, balse dabayaaqadii 2000 kadib doorashooyinkii waxaa tegey xukuumaddii Clinton, waxaana yimid xukunkii Bush. Ciraaqna waxa ay ka mid ahayd arrimaha ay muhiimadda gaar ahaaneed siinayeen. ma qabo in xukuumaddii Bush ay si dhammaystiran u fahamtay waxa ay rabto inay ka qabato ama ka fuliso Ciraaq, balse waxaana soo gaartay in ka shaqaynta Ciraaq ay tahay arrin waajib iyo lama dhaafaan ah, isla markaana ay tahay inaan la tacaalno mar haddii ay ku jirto arrimaha hortibinta u leh. habka loola dhaqmayo ayaa ahaa waxa laga hadlayey. ha yeeshee waxaaba jiray shakhsiyaad joogay wasaaradda gaashaandhigga oo uu hogaaminayey Donald Rumsfeld, kuwaas oo bilaabay inay la xiriiraan shakhsiyaad kala duwan sida Axmed Jalabi. waxa ay ka dhageysteen wixii uu u sheegayey, waxa ayna isku xidheen shakhsiyaddiisa iyo aragtidiisa. kadib dhacdadii 11 Sebtembar, Ciraaq waxa ay si kedisa u noqotay meesha ay ku wajahan tahay dhammaan hortibinta iyo muhiimadda xukuumaddu.
maxaa yeelay xukuumaddu waxa ay u qaadatay in saadaam gacan weyn ku lahaa wixii dhacay 11 Sebtembar 2001 maalinkii xigay ama 12 Sebtembar 2001 wasaaradda gaashaandhigu waxa ayna weydiisatay inaan soo helno xiriirka ama inta mar ee uu Saddam Hussein ku hanjabay inuu weerarayo Mareykanka marka dib loogu noqdo khudbadihiisii si aan qarsoonayn wasaaradda gaashaandhiga waxaan u sheegnay in uusan marnaba sheegin inuu weerarayo Mareykanka laga soo bilaabo daqiiqadaas iyo maalinkaas waxa ay si joogto ah u raadinayeen wax xiriir ah oo ka dhaxeeya Saddam Hussein iyo weerarkii 11 Sebtembar 2001 ilaa laga soo gaaro 2008 oo ah xilligii baaritaankii aan sameeyay aan ku wareejiyay madaxweyne ku-xigeenkii Dick Cheney markii aan ka hadlaynay Saddam waxa ay miiska soo saarayeen su'aashaas lafteeda بعد كل هذه السنوات من انتهاء الحرب ما زالوا يتحدثون عن المبررات التي تبين فيما بعد أنها كانت مبررات kadib dhammaan sannadahaas oo dagaalkii dhammaaday weli ma waxay ka hadlayeen marmarsiyihii ay caddaatay goor dambe inuu ahaa khiyaali aanan waxba ka jirin في عام 2008 نعم هذا صحيح sanadkii 2008 ها waa sax طيب سؤال فقط ما دون تحدثنا عن hagaag su'aal keli ah ayaan kaaga celinayaa halkaas waxa aan ka hadalnay golaha qaranka iyo Axmed Jalabi si dulmar ah ma jireen magacyo kale oo ka mid ah hoggaanka mucaaradka Ciraaq oo gacan siinayay CIA kuwaas oo hadda la dabool qaadi karo magacyadooda هناك عدد من أفراد المعارضة وعدد من المجموعات waxaa jiray dhowr qof oo ka mida mucaaradka iyo dhowr kooxood oo kale oo aanay suurtagal ii ahayn inaan ku sheego inay gacan siinayeen hay'adda sirdoonka waxaan u jeedaa CIA balse waxa ay ahaayeen dad aan isha ku hayo mid ka mid ah howlihii aan qabtay 2 sano ee ugu horeysay waxa ay ahayd inaan dhiso sal iyo ila adag oo xogteenu yeelato meelaha aan xoog saarayay waxa ka mid ahaa mucaaradka Ciraaq kooxaha dhaqdhaqaaqa wadaniga ah ee Suuriya iyo xitaa golaha sare ee kacaanka islaamiga ah ee Ciraaq dhinacyadaas oo dhan waxa ka mid ahaa dad aad ugu dhow xukuumadda Mareykanka mid ka mid ah magacyada waa Iyad Calawi waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha dib u heshiisiinta qaranka dhowr mar ayaan la kulmay kulankaasina waxa uu qayb ka ahaa kulamo aan qorsheynay waa nin aad cajiib u ah oo haya xog aad muhiim u ah sidaas awgeed waxa uu ahaa bartilmaameedka sirdoonka Ciraaq sirdoonka Saddam hawa iyaga dhowr mar ayaa sirdoonka Ciraaq isku dayay inuu ku dilo Iyad magaalada London si dhab ahna waxa uu ahaa nin aan jeclayn xisbigii Al-Ba'ath isaga oo ahaa xubin hore oo ka tirsan xisbigaas ha yeeshee waxa uu ahaa shakhsi karti badan sida Barham Salih هذه نقطة مهمة جدا سيد نيكسون برهم صالح ma madaxweynaha Ciraaq ee hadda ها waxa uu ka mid ahaa koox kurdiyiin ah oo ay la kulantay xukuumadeennu sida midowga qaranka iyo xisbiga dimuqraadiga sidaas oo kale waxa ka mid ahaa Mas'uud Barzani dadkaas oo dhan waxa aan la lahayn wada shaqayn u ekayd mid joogto ah طيب هذه نقطة مهمة جدا سيد نيكسون kani waa qodob muhiim ah mudane Nixon ee Barham Salih Dr. Barham Salih waa madaxweynaha hadda talada haya ee Jamhuuriyadda Ciraaq daawadaheena Ciraaqiga ah ama kan Carbeed waxtar ayay u leedahay in uu ogaado inta uu la ekaa xiriirka kala dhaxeeyay wakaaladda dhexe ee sirdoonka Mareykanka waxaana laga yaabaa in qofka ugu wanaagsan ee nooga sheekayn lahaa xiriirkaas uu yahay mudane John Nixon حسنا برهم صالح كان شخصا معينا hagaag من طرف الاتحاد Barham Salih waxa uu ahaa xubin laga soo magacaabay dhinaca ururka midowga qaranka si uu ula shaqeeyo reer galbeedka taladana looga tuuro Saddam Hussein waxa uuna ahaa qof si caadi ah ula shaqeeya xukuumadda Mareykanka waxa kale oo aan rumaysanahay haddii aan saxanahay oo ay xusuustaydu i caawiso inuu ku noolaa halkan Washington muddo dheer sidaas oo kalena waxa uu fahmay xukuumadda Mareykanka iyo siyaasiyiinta Ameerikaanka ah iyo sida loo socodsiiyo shaqada xukuumaddeena sidaas oo kale waxa uu ahaa isku xiraha kooxdiisa waxaan ula jeedaa midowga qaranka iyo innaga waxa kale oo uu ahaa nin aad loogu kalsoon yahay marka la joogo dhinaca Jalaal Dalabani ma qabo
mana rumaysani inay jirto cid ay taasi ka qarsoon tahay. طيب قبل أن ندخل في ملف hagaag ka hor inta aanan gelin galka marmarsiyaha u ahaa faragelinta militari ee Mareykanku ku sameeyey Ciraaq sanadkii 2003 waxa aan rabaa in aan ku weydiiyo su'aal ku saabsan macluumaadka iyo shakhsiyaadka iyaga oo jooga Ciraaq la shaqeynayay CIA. inta aad og tahay CIA ma isku dayday in ay Saddam Hussein ku khaarijiso gudaha Ciraaq sanadihii ka horreeyay dagaalka. هل حاولت الولايات المتحدة اغتيال صدام حسين؟ أولا هناك حظر. CIA ma isku dayday inay Saddam Hussein qaarajiso ugu horreyn waxa mamnuuc ahaa isku dayga qaarajinta. kaasi waa arrin muhiim ah. suuragal nooma ahayn in aan habka qaarajinta u adeegsano maareynta siyaasadda arrimaha dibadda. taasina waa arrin kale oo muhiim ah. waana tan hore. midda labaad, wax xog ah kama hayo wax isku day dil ah oo dhinaca xukuumadda Mareykanka ka yimid kuna saabsan sidii loo qaarajin lahaa Saddam Hussein. haddii aan dhahno waxa lagu dilay howlgal qarax loo adeegsaday intii uu socday howlgalkii dabaysha saxaraha sanadkii 1991 arrintu aad ayay uga duwanaan doontaa sidii uu ku dhintay. balse waxba kalama socdo wax dadaal ah oo CIA dhankeeda ka socday ama xitaa dhinac kale oo xukuumadeed kaas oo ku wajahan qaarajinta Saddam Hussein. balse soo lagama yaabo in xitaa haddii ay khaarijintu mamnuuc tahay ama aysan ahayn hab miiska saaran in Washington ay soo dhoweyn lahayd khaarijintiisa haddii ay dhacdo. waxa aan qabaa in haddii Saddam godka lagu rido ama mid ka mida taageerayaashiisu qaarajiyo Washington uma baroorateen kamana naxdeen. waxa ayba la xiran lahayd oo ay la saaxiibi lahayd qofkii bedela. waxa ayna xiriir wanaagsan la samayn lahayd qofkaas bedelay. Washington iyo Saddam waxa ka dhaxeeyay xiriir aad u wanaagsan xilli kamida xilliyadii la soo maray sida intii lagu jiray 80-yadii. balse wixii intaas ka dambeeyay kalsooni la'aan ayaa soo kala dhex gashay. بالنسبة للعمليات التي كانت يعني نفذت وكمحاولات marka la fiiriyo howlgalladii la fuliyey oo loo qaadan karay isku dayga khaarijinta Saddam Hussein oo lagu hirgeliyey gacmaha dad u dhashay Ciraaq ha ahaadaan mucaarad ama ciidanka dhexdiisa. waxa aan maqalnay dhowr howlgal balse ma oga ilaa heerka lagu kalsoonaan karo. ma awoodaa in aad beeniso ama xaqiijiso xiriirka ka dhaxeeyay dadkii qabanqaabiyey iyo kuwii fuliyey howlgalladaas iyo CIA. ليس لدي ببساطة أي معلومات يمكنني أن أقدمها لك بهذا الصدد. marka aan si fudud kuugu sheego ma hayo macluumaad ay suurtagal tahay inaan kaa siiyo arrinkaas. ma aha inaan sir kaa qarinayo balse waa arrin aanan waxba ka ogeyn. intii aan halkaas joogay haddii arrinkaasi dhaco waa ogaan lahaa. dhankayga marka aan ka istaago ma garanayo waxa ka jira isku day qaarajin ah oo CIA ku doonaysay inay ku disho Saddam Hussein ama ay ku taageeraysay dad raba inay fuliyaan qaarajintaas. ha yeeshee si daahfuran marka aan kula hadlo ma qabo in arrinkaasi dhacay. kuma lihi CIA ma taageerin ama gacan ma siin saraakiil xanaaqsan oo ka tirsan ciidanka Ciraaq sanadihii 80-yadii si awood looga tuuro Saddam. waxa aan la shaqaynay nin lagu magacaabo Wathiq Samaraa'i balse aakhirkii la shaqayntaasi waxa ay nagu noqotay wajigabax iyo dharbaaxo weyn. waxa waajib ah inaad wax ka barato dhaqanka qaab howleedka CIA. marka uu dhaco fashil loo wada jeedo waxa timaada laba bogleyn ku saabsan in mar kale lagu celin karo ama la isku dayi karo in la soo bilaabo. maxaa yeelay fashilkaasi waxa uu galaafan doonaa mustaqbalka kaadirka shaqada qaarkiis mana guulaysan doono.